وهي أبوه شلي وحلو مجا جديد في الصومالية مركز في الصومالية كذا ترند وانت كلها وكل الصومالية حل كاسيس دور تجور إن horta xilka intaan la magacaabin waxa ay yimi niman xildhibaana ah oo golaha ka tirsan waliba dhowr jeer arintan ay soo bandhigeen dabadeedna laba qodob baan ku uriyo waxaan ku wada ka aqbala qodob labaadna waan u sheego waxaan ku uri wax mushahara ama guna ah ama dhaqaale ah idinka qaadan way xafiiska iyo magacawga anigu si caawimo ah ayaan idin la shaqeynayaa dalka iyo dadka intaasaan aniguna ku darsanaya dabeetana waxay guuraan warniyow qodobka mushahar la'aantii waa nagu cusub yahay bal golay aan kula noqono way la yaabeenba dabadeedna way igu soo warceliyeen waxay igu yiraahdeen waan isla qaadan dabeetana saasaa shalay ta wareegtadu ay ku soo baxday waa soo dhaweynayaa waayo waxaan u soo dhaweynayaa waa arrin loo baahnaa golahana waxaan ku bogaadiyay ku bogaadin maayo inayna magacaabeen laakiin waxaan ku bogaadinayaa inay garashada iyo dareenka siiyay inay xafiis u furaan afka iyo dhaqanka oo aad loogu baahan yahay runtii marka waa soo dhaweynayaa waanan la hawlgeli doonaa insha Allah way ma santaa buugaan sababta keentay in mushaharkaasi ka cudur daarato oo aad tiraahdo mushahar la'aan ma ku shaqeynaya maxay tahay dhowr sababoodba weeye waxa weeye markii horeba horta bilaash baa kan ku shaqeyn jiray waliba xafiis yaro saacada la joogay kan weeye labada habeenimo hadduu doon mid ku soo garaacaya computer dul fadhiya ama laba is haysta shaqadan hayna waaba mid aan lahayn xilli ba lahaynba suugaanta iyo afka marka taas waa mid oo hawl cusub oo imka la diraya ma waasha wal baan hayay talabaad waxa weeye de mar haddii si aan loo arag aan caqabad u noqonin meel shaqo inay tahay dad loogu sii dhiirado inaanu nahay dad arintan uguba jira ay aan waxba ku doonayn inaanu nahay oo hatta meel kale waan u sheeganaa hadii ay nooga baahdaan saas ma noo shaqeynaa hadii meel kale la magacaabana kulli baan ugu dee aan mar rabo aan wax ku xiraynin oo loogu dhiirado oo ana waa uga jeed mid kale waa uga jeednaayo noloshii iyo shaqadii iyo wixii dhan wax lagu soo koobay wax yar oo mushahara marka himilooyinkii dadka lumaya hadii qofku mushaharkan ku koobo laakiin markay bilaa mushahar tahay hal abuurkaaga badanaya iyo inaad tahay qof higsi leh ayaad noqonaysaa taana inaan wada cusub jeexno oo nolosha yare mushaharka ah laga daayo iyadana waan uga jeednay marka ujeedooyin badan baan kale yahay inaanan mushahar ku shaqeyn waayo de nolosha siyaabo kale aan u dabaraa noloshaydu awal bedelka waan joogay oo de shalay ma niman magaaladii de noloshaydi kale waan haystaa marka tan iyada waxaan ka gelayaa uun inaan waxba ku qaadan waxaan dhawaan waxa jirtay xil lagaga magacaabay dhanka Soomaaliya oo xeel dheer af Soomaaliga xilkaasi iyo xilkan say isku qabanayaan amba isku waafajinaysa de ka hor waan ka hadlay dhowr jeer baan ka hadlay inkastoo buuq bariga dhashay oo buuq la kiciyay aan ka hadlay oo buuq anigu hadalkayga hore nuxurkiisu wuxuu ahaa hadii la xusuusto waana de duuban yahay laba qodob baan ka hadlay oo afku inuu dayacan yahay oo u baahan yahay in gudi loo sameeyo maantana waa ku celinaya waayo shalay baaba la sameeyay gudidii caymiska xukuumaddu sameysay maanta ana waxaan leeyahay gudidii afkana ku dara waa naga talo qodob labaad baan maalinta hore ka hadlo waa yeelka muddada dheer ku soo jiray dhaqanka iyo suugaanta ee aqoonta iyo aragnimada leh in loo sameeyo meel xarunaho da'yartuna ugu timaado oo lagu kala faa'iideysto taasaan iyana ka hadlo dabeetana buuq baa kacayoo waa tii wax badan la sheegay oo qaar yiraahdeen ujeedo kale u leeyahay oo Soomaaliland baa lagu soo duulayo qaar yiraahdeen shaqo xamar u tagayaayo waxa la shubo xaqatan waxa soo dhan waxba kama jirin waxaana jira hadalladayda markii dambe kii u dambeeyay waxaan ku yiri magacawga xamar hadduu waji siyaasi yahay waayo hargeysa xamar siyaasadda la isku haya marka afka hadii uu siyaasadii soo dhax galo anigu dib baan isaga taagay hatta maalintii waa la yeeray gudida xamar madaxweyne farmaajo xadhay ka jiray waa la igu marti qaad ee dhaweydba waa ka cudur daarto waxaan ku yiri warniyow jawiga siyaasiga anigu nin dhex gali karaya ma yihi laakiin afku markuu yahay af madax banaan
waxaan aaminsanahay hargeysa xamar qura afka ma lehe qoomiyadda Soomaaliyeed oo dhan Jabuuti ee jigjiga leh ee fadhi leh in laga wada shaqeeyo oo gudiyo loo wada sameeyo ayaan aaminsanahay si guud looga shaqeeyo laakiin xamar iyo hargeysa qura afku inaanu ku koobnaan ayaan qabaa marka iswaafajin ma jirtee si guud baan afka uga shaqeynaa laakiin wixii siyaasi ah imka halkan xafiiskana loo magacaabo waxaan ku ekaanaa anagu afka iyo dhaqanka iyo erebixintiisa laakiin golaha baarlamaanka iyo shuruucdiisa iyo xeerarka mudajinaya siyaasaddiisa shaqo kuma lihin marka labada meelood ayaanu kala nahay dad baan arkayay qaab kale u dhigay hadalladaydaas oo imka hadaan idhaahdo waa shaqo la'ahay ceeb anigu ma arko shaqo la'aantu ceeb maaha dee Soomaaliland baaba shaqo la hadday ceeb tahay laakiin dad baa hunguri u dhigay dad baa camal la'aan u dhigay dad basan kuwaana waxa leeyahay wala iga tahay nolosha hunguri kuma qiimeynay ugu dambeyn hadalkaaga waxaad uga jeedaa meel kasta oo af Soomaali la iga baahdo hadday noqoto Somaliland hadday noqoto Soomaaliya hadday noqoto Djibouti waan ka shaqeynaa saacad uga jeedaa waxaan uga jeedaa ciddii kasta horta afka ka shaqeynaysa ee xaqiisa talaabo u qaada ku hambalyeena oo wax amal wada leeyahay meeshina loo ka yeeraa haddii aanay siyaasad ku lug lahayn ay af iyo tahay war afka seen uga shaqeynaa waayo akademi baa laga dhawaaqay 13kii lagu sameeyay Djibouti madaxweyne Silaan ragga ka khudbadeeyay qaaraan kana bixinayay akademi goboleed buu ahaa agaa la yahda oo geeska Afrika Soomaalida degan yaa samaysatay Somaliland way tagtay xamar way tagtay Djibouti way lagu sameeyay jigjiga way tagtay Somaliland madaxweynuhu hogaaminaya Silaan iyo $100,000 ballan qaad marka wuxuu marka aanay cudurti lahayn iyo siyaasad iyo naxle iyo si kale oo la isu diiday aanay lahayn ee afku yahay war af Soomaaliga saynu uga shaqeynaa wax dhibaato kuma jirto waad mahadsantahay idinka mudan